السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أحمد إبراهيم إن بدن مقال مصورين برتي يوتيوب ما أنت وحارنا كهذا صوبته MT4 MT5 لو صار IS sidoo kale brokerada Mareykanka laga regulatorka way ugu saareen warbixinta aan soo helay muuhbo boqolkiiba boqol qof hubtana ma jirto balse waxaa jirta hadallo yani u dhow xaqiiqda oo ah in MT4 iyo MT5 laga leeyahay dalka Ruushka Mareykanka sa ogtiin Ruushkana waxay dagaal iskugu qaadeen sababta Ukraine Mareykanka hadda ma rabo mise ma awoodo ma rabo inaa siyaasad galo laakiin dagaal duulitaan caadi ah ma sameyn karo laakiin wuxuu hadda sameynaa aad isku waxay tahay in Russia oo dhaqaale ahaan cirib tiro marka maadaama MT4 iyo MT5 laga leeyahay dalka Ruushka oo dad badan oo Mareykanka joogan ay isticmaalaan Mareykanka dhaqaale ahaan waxay rabtaa inay xanuujiso Russia saas darteedana waxaa maqalnay in MT4 iyo MT5 ee Mareykanka baan ka dhigtay sidoo kalena brokerada ee Mareykanka laga leeyahay regulatorka aan listigooda ka saareen sidoo kalena appka iOS ee Apple leedahay in laga saaray softwareka MT4 iyo MT5 ma dhici karta inay saameyso laga yaabaa wixii mustaqbalka imaan doona cid og ma jirto balse hadda hadii uu kugu jiro labadaas app mobilekada iPhone-kaas ka tuurin si isticmaal laakiin waa taqaaniin wax walba oo dhaco linki waxaa jiri doona gadaal ka soo bixi doona hadhow laga soo degsanayo I don't know in softwareka Apple hadhow lagu sameyn karo balse dadkii haysto Android oo aanan degnayn Mareykanka weli way isticmaali karaan appkooda sidoo kale waxaa maqlaaya wadamo Indonesia India wadamo kale in sidoo kale laga saaray appka MT4 iyo MT5 laga yaabaa baashi inay sii weynaato wadamo badan baan laga dhigo yaa og balse warbixintaas yar ee kooban si ogaada siina haysta waxaan idin leeyahay